مساجد جمعه لبوحه وقال له تكنايو أي نن قروح بدن أو در آدو قروح بدن ستة أي صفقة وركوت كذي وكسوة كعي علماء دي بقولي مدي وحبودك تقول شيء شيخ إمام كان مكرفون قاتو حيري نيكا ولكن إن الدول تاجن وحولها جمع مسلمين أولاد إلهي هيوي ديان بولي يقول دعي يقولي والله دعي ما شاء الله هذا جمعيه كانوا صوكعي دعاء دي بقول شيكتي والله دعي هذا جمعيه سدعات بو صوكعي دعاء دي بقول شيكتي والله دعي نين علماء دي كمدا فكري وياري سوفر يسبولو وعلى إمس هدومر بورستي بوكيدي مركز ما بورسن بقى بالكورة من نكاس صحبة دعاء ساسي مسعونسا دعاء سي مجمع عادني أولياء علماء أوبر الدعيين الممكوه عليا لماذا محو وين بلشك خلاف السنة سنة إلهية دي وخلاف سيئة طريقة دي الله مرة يا سحنا ممرن مركا وصوك عليها يؤدي سقوح دي سوحا لموضيا لن أفرد مرة له أولي أوبرنا عن كتحن لكن مركو يري ما بغورسن با ayaa la yiri war number ba ka qaldane horta soo guurso horta numberkaas ka soo sax numberka ilaahay bari tayib hadana jamciini kala soo kacay ninkii xaaladiisa ogaay xawaasha ka qaaday ba ayaa yiri war naga fadhiis wariyaa intuu imaam meeshii buu fadhiisiyay culamadii baa ku tiri war waa ninkii ducada doonaya khayrka badnaa duca doonkii maxaad u fadhiisay baa laga yiri markaasuu yiri war number ba ka qaldan buu ninka maskaxdu wax ka yar qaba saad ku garatayo dama bu guursan buu yiri eega kulligeen dadka maanta muslimiintu in muslimiintu a'azza an-nas dadka adduunyada ugu sharaf badan ee noqdaan ma jecelahay mise ma jecelin balki jecelo gacanta taag laakiin dariiqi muslimku aziz ku noqonayay inaan qaadno diyaar ma unahay umanihin بصدق يجيرك معك دحية بس أرجو معك دحية سوما جيرك ما سكوي ميدي ويتشابهن وحيد هذا حبايب والله بصدق طبعا لباتن والله ندمية سنو بدنا كطلب حياة جير بايدي مركز الرأي في عبد سوى جديو وحويدي ومثال يعني كور تنعورت الله سورة صومة غنام جرس قيل الله سورة حلا قاضي بصدق قورتي ده الله سورة بيقولي si markay soo socoto shanqadha loo maqlo dana looga dhunto markaas jiirkii oo dhan baa yidhi wallahi fikradaas waa fikrad fiican tala fiican buu soo jeediyey waan isku raacnay marka jiirka sheekhoogii ugu weynaa baa yidhi waa hagaaga ayaa soo suraya buu soo saamaynde nabiga musalliya dad muslimiinta oo dhan maanta inay diinta dhegaystaan inay diintu nolosheena ka muuqato inay muslimiintu a'azza an-nas inay noqdaan inay waan jecelahay laakiin marka la gaaro diinta dadaalkeegii nin walba gaarka dambu gashanaya markiiba war waxba gaarka dambe ha gashane gaarka hore gasho yaa u diyaar gaarka wala inuu galiyo insha Allah dhahada Allah inaga farxiyo nin taajira ayaa miskiidka soo galo ducaysanayay nin ay qaraabo yihiin oo baahnaa ayaa markaa aqalkiisii buu ku waayay xafiiskiisina markuu tagan waa laga celiyaa wuxuu yidhi masjiidkee buu ku tukadaayo masjiidka halkaa ku yaalo ku tukadaa baa la yidhi masaajidkii buu dhex fadhiistay markaa dee ninkii taajirkii dad muxsiniin iska jiro ilaahay ku xidhan moogtahay oo ilaahay cilaaqo la leh iska alla barya markaas kiina albaabka intuu ka baxay buu dibaddu ku sugayaa ilaa dhinacu ka soo galay buu arkayay markaasuu wareegaayo markaasuu arka ninkoo ducaysanaya haddana uu yar wareegaayo ninkoo weli ducaysanayo salaad sunna intuu tukada iska alla baryaaya markuu ka soo baxay buu ku yidhi baahida adig ku hayseed la alla barya maxay tahay buu ku yidhi
annaka yahayd buu yidhi inaan meelahan ku baryootanne adigu waad haysataa ee maxaad gacmaha la taagtaagi manakaad nagaga dhumanaysaa meesha soo bax buu ya allah ya muslim taajirku ilaahay buu u baahan yahay miskiinkuna ilaahay buu u baahan yahay madaxdu ilaahay bay u baahan yihiin dhallinyaradu ilaahay bay u baahan yihiin shucuubtu ilaahay bay u baahan tahay ilaahay bini aadamku lamxata cayn kama marmi karaan ilaahay waan u baahannahay diintu qiimay leedahay shayga qiimaha leh waxaa lagu gartaa markaad adigu aad waxa qiimaha agtaada la aad gashatid oday baa inankiisu ku yidhi aabba intaa oo sanaan masaariif ku siinaye bal maanta 1,000 shilin aabba ii keen buu ku yidhi 1,000 shilin dhididkaagaan rabaa inaan cune ku yaroo ciyaal magaalo weligii shaqo aan arkin aqalka hooyadii ku koray oo dhinaca baan u dhaafin markaasuu u tagay baa la yidhi hooyadii buu ku yidhi hooya 1,000 shilin siiyo maxaad ka dhigayo anaa u baahan hooyeysii way siisay odaygii aabihii buu u geeyey intuu nin lacagta soo shaqeeyay iska dhigay buu aabo waatan lacagtii hoo uu ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu 1,000 shilin ku tuuray odaygii markaasuu weliba inankiisiiba hoosta ka yar eego saasuu eegay markaasuu haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal beri toolana waan 1,000 shilin aabba waan kaa rabaa fariid baaba tahay adigu ye shaqadaaba taqaanaa 1,000 shilin ii keen hooyadii unbuu ku yar wareego hooyo lacagii siiyo maxaad ka dhigayo aabaan way siisay hooyo moogta hooyo macaan uu keeno uu ka qaado dabkii unba haddana ku tuura kiina bul maalin muddo kadib uu haddana yidhi bal maantana aabbo fariid baaba noqotee uu tago hooyo 1,000 shilin siiyo war lacagta beryahan aad iga gurto horta halkeed geysaa way runta ma kuu sheega ahaa aabbaa igu yidhi ii soo shaqee anu shaqa ma garanaye isagaan markaa u geeyaa 1,000 shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dab hortiisa ka baxayo unbuu ku tuuraa isaguna markaasay ku tiri war lacag la gubo anigu ma hayee orad magaalada u galo odayga waa mithaal yani mathal xataa tafhamuu shaqo tagay dad markaa wuxuu arkay nimana qaldhisaya buu arkay u waraysto maalintii imsaad soo shaqaysaayo caynkaasoo 1,000 shilino uu la shaqo tago adu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay lacagtii hore lacagtan ma isku qiimaa markaa uu u keenay odaygii aabbo hoo markaasuu uu yidhi weliba hadal buu raaciyo wuxuu yidhi aabbo lacagta dabka ka ilaali dee nabiga ku sallaya markaasuu yidhi oo maxaa ku jaban buu yidhi haddaan ku tuura kuwii horeba soonigii gubayey ma may aabba tani tii hore way ka duwan tahay tan hee tan waa dhidid baa ku baxay buu yidhi waxaan u soo qaatay mathalkaas shaygan marka uu maal iyo wakti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa kuwa maalin qayilayo iska barjeynaya waa kan jamaacaddu dadkay ziyaartaan ma ogtahay ayaan u gallay si fiican bay noo soo dhaweeyeenoo BBC iyo raadiyoogina way baktiyeenoo wayna dhegaysteen markaan u yar dhammaynay wacdigii een idhi dee fadhiguna kala fiicane masaajidkeenna mariyo nee raaca mid baa gacanta taagoo yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa soo diray waxa lagu yidhi namaad maqasheen buu yidhi markaasaan aamusno kuwii la barjeynayay baa yidhi war ninkani waa jaamiciyo waxbuu inii kordhina ka dhegaysta haye inoo kordhiyo jaadka uu takhsiisan yahay sigaarkana nebiga waxa lagu yidhi maad maqasheen bal noo sheeg fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaytirin ilaa man tawallaa wakafar hadalkaa ka warrama dadka waani baa nebiga laga yidhi aduu waaniye uun baa tahay diinta dadka qasabka ka dhigaya ma tihin nebigii baa sidaa lagu yidhiye waad noo sheegteene
qasab ha nagaga dhigine iska socda markaasay kulligood yidhaahdeen ninkaas sheekhaygu waa ninkaas shaydaan baa sheekhina aqoontii uu hayaa laakiin taqwadii baa hoos u taal iimaankii baa daciifa anagoo jawlad bari soconna baa nin u tagnay Soomaaliya oo la yidhi ninka waa Soomaali waa nin meel fadhiyo khamri cabaya wadannada gaalada markaasaan u tagnayo assalaamu calaykum markaasaan calaykum assalaam xageed ka timaadeen meesha ma miskiid baa meesha assalaamu calaykum tanaleedihiin buu nagu yidhi maye dalkii baan ka imanno qaaraddii afrikaan ka imanno ininkaani soo buuqanno inaad miskiidka noo raacdaan doonayno miskiidka ah diinta ayaa ni bar ininka buu yidhi diinba ma taqaanaan sawka ilaahay yidhi maa laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun waya nin sakhraana oo aayaddu daliilinaya eeg macluumaadka uu hayaa laakiin yaqiintii iyo iimaankii baa daciifa markaasaan ku nidhi laa baas na raac sidaa nagu raac nima raacaya na raac jamaacadda intii kalaad soo salaamaya na raac ilaahay fadligii ninkii sidii buu nagu soo raacay jamaacaddii buu la dhegaystay habeenkii buu nala seexday subaxdii markuu kacay ee khamraddii ay ka bacday uu arkay miskiin laga dul eedaamayo uunbuu telefoon qaato oo wuxuu yidhi uun ayaa meeshan i keenay ii sheegay buui waan xidhibe booliis baan ugu yeedhayay waddankan haddii booliis lagugu yeedho waa khalaas waa lagula tegi wuui markaasaan idhi ar cidba kuuma yidhi naga raalliha waa iska socow bas iska socow markii dambe raggii noo sheegeen waxay nagu yidhaahdeen ninkaa waddanka markuu soo galay caalim buu ahaa weliba masaajid waddanka ku yaalluu imaamka ahaa bay nagu yidhahdeen maantana dariiquu khamriga ku cabbayaa waxaan xasuustaa maalin sanadkii horaan u malaynaya bishii November bisheedii diyaarad baan ka raacnay Djibouti waxaan u soconnaa Addis Ababa Ethiopia Airlines maalmaha diyaaradda raaci doono muddo 5 bilood laga joogana diyaarad baa ku dhacday Ethiopia dhexdeeda oo 150 qof ay ku qurbeeshay baad maqashay ma malayn ya 130 dar dhabayna la fadhiisatay dad baa naga raacay dadna hadana safarkii baa sii wadanay ilaa Addis markay u dhawaato waxay gashay roob iyo buuro waana meelihii diyaaraddu ay ku dhacday ugu way garirtay markaa kursigan aan u fadhiyaa kitaab quraan aan iska akhrisanaya halkaana culimo kala fadhida halkana nin daadiisa ku qiyaasay 60 jir oo aan muslim ahayn oo gaal ah oo xabashi ay fadhiya diyaaradii way garirtay markaa quraankan iska akhrisanaya lugtaydii buu qabsaday naxdin daraadeed markaas aan ku yiri laa ilaaha illa allah markaas uu yiri igu celi way garirtay hadana diyaaradii oo naxay aniga hadana ay qabsaday markaa baan laa ilaaha illa allah markaas laa ilaaha illa allah subhanallah dhageysta musa ajiib wallahi waa qisa ajiiba markaasaan ayaan ku iri maxaad la cabsoon baan ku iri odayadaaba hamay cabsoon odayada marka aniga ila socday niman culimo reer Djibouti bay ahaayeenoo ijtimaac ka dhacay Addis Ababa ayaan u soconaa way iska hurdaniyo marka kursiga dusheeda iska khoorinayaan markaasaan ku iri kuwa hamay cabsoonayaan adoo maxaa la cabsoon wuxuu iri kuwaasi way shaqaysteen anu ma shaqaysan buu yiri kuwaasi waa muslimiin way shaqaysteen buu yiri ma cabsoonayaan anu laakiin ma shaqaysan buu yiri adduunkan aan khamri ku cabaa fisq iyo fujuur iyo balaayo iyo macsiyaan ku jira maxaa markaa wuxuu yiri anu islaam baan u baahanahay buu islaam inaan islaamaan doonayaa buu yiri hadalkii hadana Saudi garirta diyaaradii markaas oo hadana lugtii qabsaday war isiida laa ilaaha illa allah markaas uu iga dabeeyo laa ilaaha illa allah diyaaradda markay nala fadhiisatay baan fursad baan helay waan ka faa'iideystay waxaan ka yiri waa inaad islaamtaa wuxuu yiri islaamnimadu bariyahan oo dhan maskaxdayda ku dhex guuraysaa buu yiri waanan arkay buu yiri dadka muslimiintu dad wax weyn aaminsan inay yihiin waan arkay buu yiri
rag badan oo ganacsato muslimiinana saaxiib aan lahay buu yidhi marka ii soo duceeyay buu yidhi culimmadan ay igu sheekay ii soo duceeyaan anna ballan waan islaamayaa buu yidhi hadalku halkaan noo mareen marka ayaa la soo dhaadhaca waxaan xasuustay marka aayaddaas waidaa rakibuu fi lfulki dacwuu allaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albarri idaa hum xaalad adag markay ku timaada baa ilahay yidhi kuwa gaalada xaggay u soo ordaan xagga ilaahay tal qisaan inii sheegi niman caddaana oo dalxiistayaal ah xeeb bay marayeen meel xeeb ah xeebtii waxay ugu tageen nin muslim oo dhallinyaro ah oo xeebta iska jiifa badda dhinaceega iska jiifa way kiciyeen waxay ku yidhahdeen meeshan maxaa ku dhigay wuxuu yidhi waxaan ahay kalluumaysto baddaan ka kalluumaysanayaa oo khaydkiibaa badda iigu jiro halkana waan ku xidha lugtayda marka kalluunku marka uu galo khaydkaasi deedna waan lugtaydaa dhaqaaqi waan kici waan soo saaran waan iska karsadaa dhowr xabadoodna waan qaataa reerkaygaan u geeyaa buu ka yidhi way ka naxeen markaas lacag bay iska soo ururiyeen lacagtii bay u dhiibeen lacag aad u fara badan wuxuu yidhi maxaan ka dhigaa waa qiso maal yani waxay ku yidhahdeen lacagtan waxaad ku iibsataa shabag fahmaysaan baan u malayn shabagaabaad badweynta ku tuuran halkaad 2 iyo 3 maalintii aad qabanayseen 20 baad qaban markaasuu yidhi kadibna waxay yidhahdeen in muddo ah sidaa u shaqee lacagta yar ururso doon yar baad marka dambe iibsan doontaa enjin yar baad mooteer yar bay leedahay badweyntaad ku dhaadhici doontaa halka maalintii 20 aad soo qabanaysay 100 kalluun baad soo qaban ilaa 200 oo xabadood markaasuu ku yidhi kadibna markaasay yidhahdeen in muddo ah sidaa u shaqee magaalada halkan suuqa khudaarta iyo hilibka lagu iibiyaad meel ka furanaysaa halkaasaad markaa ku iibinaysaa dadkoo dhan baa ku baranaya nin caamaad waddanka ka noqonaysaa oo kalluunka lagu yaqaano hebel kalluun laba lagu odhan markaas hebelkii kalluunka iibin jiray markaasuu kadibna dhowr sano sidaa u shaqee haye lacagta ururi baanka dhig kadibna laashkan dheereeya ee badweynta u dhaadhaca ayaad iibsanaysaa fadeed annagu xaggeega fadeed baan idhaahna jabuuti fadeed kaabaad iibsanaysaa baddaad ku dhaadhacaysaa deedna waxaad soo qabanaysaa dhowr 1,000 xabadood baad soo qabanaysaa maalintii iyo weliba khayraad badan oo badda ku jira markaasuu yidhi kadibna gobollada waddankoo dhan baad ka furaynaysaa markaa branch meelo maaragtaani aad ku iibisad kalluunka waddanka dhanba kalluunka adigaa siinaya markaasuu yidhi kadibna muddo sidaa u shaqee haddana 5 sano 6 sano lacagta ururi waxaad iibsanaysaa marka dambe warshadii saaradiinka samaynaysay markaasuu yidhi kadibna warshadaasi markaa way shaqaynaysaa adduunkaad u kala diraysaa markaasuu yidhi kadibna qasri weyn oo vilaayaad dhisanoo si fiican baad u seexan bay ka yidhahdeen wuxuu yidhi hadda markaad ii timaadeen baad hurdayga kicisayna buu yidhi wuxuu yidhi ma hurdo un baan intaa u maraa buu yidhi soonigii hurday maa iminkadan waxaan ka wadaa macna isku aragti ma nihin noloshan daahirka maaha nolosha muslimku